الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madaxweyne ku-xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer Puntland magaaladan Garowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo Soomaalinimada waaltinimada leh aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen waxaan runtii la kulanay marxalad cimilada aad iyo aad u kulushahay bil Ramadan oo umada cibaadeysanayaan bacdama ay tahay bil barakeysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameeyno saas oo kale waxaan doonaynaa in kasto waqti nagu yar yahay inaan tagno Laascaanood Khaatumo State laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kuleelaha ah iyo bishan Ramadan dadku cibaadeysanayaan inaan dadkii aan dib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hogaamiye Firdhiye Cabdiqaadir Firdhiye aan isu sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib u soo noqdo marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado Khaatumo aan ka bilowno magaalada Laascaanood Buuhoodle Gumeys iyo Carooley iyo wixii suurtagal oo deegaanadaas ah oo aan dadka la kulanno haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo Puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo Khaatumo haduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin Ramadan Kariim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.